golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulankoodii toddobaadlaha ee maanta ku meelmariyay qodobo door muhiim ka qaadanaya hufnaanta adeegyada dawladda iyo ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah. kulankan uu gudoominayay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa lagu ansixiyay dhismaha xarunta Halmeel. xaruntan oo hoos tagi doonta xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa ujeedkeedu yahay in muwaadinka Soomaaliyeed uu Halmeel ka helo dhammaan adeegyada dawladda isagoo aan loo baahnaan doonin in xafiisyo badan loo kala goosho ama xog isku mid ah marar kala duwan laga reebo. sidoo kale golaha ayaa ansixiyay heshiiska caalamiga ah ee BBNG kaas oo hoos yimaada sharciga badaha ee qaramada midoobay. heshiiskan ayaa xoogga saaraya ilaalinta iyo isticmaalka waara ee kala duwanaanshaha nolosha badda ee aaga ka baxsan awoodda qaranka. dhinaca kale wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa kulanka soo hordhigtay daraasaad dhammaystiran oo lagu sameeyay xaaladda dhabta ah ee webiyada dalka si looga gaashaanto fatahaadaha loona hormariyo wax soo saarka dalka. ugu dambeyn Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa bogaadiyay guulaha ciidamada qalabka sida kadib markii warbixinada amniga ee la soo bandhigay ay muujiyeen hoos u dhac weyn oo ka yimid falalka nabadeedka taas oo horseeday in xasiloonida dalku ay hadda tahay mid aad u sareeya. Cabdirasaaq SBC Muqdisho. ogeysiis isbitaalka taqoosiga Muqdisho waxaa ku soo biiray Dr. Tamaam Alhamwe qabiilka taqoosiga qallimada neerfaha burooyinka maskaxda iyo lafdhabarta. inta uu joogay waxa uu fuliyay kiisas badan oo guuleystay. sidoo kale waxaa isbitaalka ku soo biiray Dr. Basil oo ah qabiilka taqoosiga qallimada afka wajiga daamanka iyo dhaawacyada shilalka. nagu soo booqo Tawfiiq miisaanka dhuxusha agtiisa Muqdisho Specialist Hospital daryeel iyo khibradaas ku haleyn karto.